waxaad kaloo ogaataan nin taageeray yuhuud ama ay taageertay oo ka faa'iiday fi taariikh lama arag waa reer xasad waa reer khayaano waa dhagar waa cadaawad ilaahay kuwa ugu necab yahay weeye shan goor bad maalinka غير المغضوب عليهم tiraadaan habaarkooda ilaahay loogu dhawaadaa balaayin muslimiin maalin kasta habaarta ilaahu yuhuudi wixii raaci jabi ilaahu maxamed iyo quwe ilaahu mactabiye jabi waad jabaysaan reer gowso dad ka soo laaban weydaan habaarka lacnada yuhuud ku dhacday baa idin ku dhici ciidan la hadlay waayo xukuumaddu way u xukuumanta horana way u xukunnay shacabkana waa u digahayaa masalada ayaan la siyaasadaynin yaan la qabyaaladaynin yaan la qowmiyadaynin waa masalo diineed waxaad ka faa'iidaysaan ma jiro in xukumka laydin qacadeeyana waa waajib diineed maxaad ku gaaloobaysaan ninka Soomaaliga yuhuud taageeray ictiraaf waan ictiraafay yiraahdo muxuu ictiraafay dhoolka muslimiinta oo dhan ba in ayagu leeyihiin in ayagu madluumiin yihiin in muslimiintu ay dhaalimiin yihiin ayagu in loo heliyo inay mudan yihiin muslimiintu cadow ilaahay oo laga heliyo inay yihiin balaaya isdaba taagan aan dhamaanaynin kitaabka ilaahay iyo diinta ilaahay oo dhan baad cul noqonaysaan muslimiinta oo dhan baad cul noqonaysaan walo yuhuud la siiyo oo ka weyn ama ka daran ama ka gaalsan ma jiro yuhuud maanta la ictiraafo darafka aan marayno xaaladda aan taaganay waqtiga aan taaganay marka lagu qiimeeyo مسألة النصرة الليلة يا مظاهراتنا ومسألة عرفية وحمانته لا أيا بريه لا نقولين قال أن ملكو قدومي وعنقبتين دقال أنصار وبيه بات كجوي أن رامر كي جاشور إن قبضته هذا بيدي أوجيسو ما هو اسمه صاحل بيدي أنا كوجي وقالوا مركز وكله واقع حالة ما كان قيمة حلي قاد مريسان الاعتراف بإسرائيل ومحي وأشد هي مظاهر الموالاة والمعاداة للإسلام قلب كساها وعداده